horaantii sanadkii 2005 Somaliland waxa ka hirgalay shirkado shacabka u qabta adeega leydhka kuwaas oo daboolay baahida loo qabo leydhka dadku ay isticmaalaan shirkadahan oo ay leeyihiin ganacsato reer Somaliland ahi waxa ay adeegyadaasi ka sameeyeen badiba magaalooyinka waaweyn ee dalka gaar ahaan caasimadda Hargeysa laga soo bilaabo sanadii 2010 shirkadahaasi qaarkood waxa ay la yimaadeen fikrado ah in ay midoobaan si ay tamartooda iyo cududooduba ay u korodho sababta oo ah waxa jiray cadaadis kaga imanayay dhanka xukuumadii waqtigaasi u garwadeenka ka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Siilaaniyo shirkadihii ka ogolayay dhanka waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa waxay la bixeen aleel halka kuwii koonfurta iyo bariguna la bixeen almis hase yeeshee shirkadahaasi midoobay higsigoodii iyo hankii ay ka lahaayeen u adeegista korontada waxa mar kaliya afduubay oo xoog ku muquuniyay xoogaga awood badan oo kaashanaya xukuumadii uu ka talinayay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaaniyo waxaase qorshahaasi si weyn uga biyadiiday oo ka gilgishay shirkadaha ay ka mid ka yihiin National Telesom iyo Gaafane Electric xoogagaasi isbahaystay waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen sidii ay u muquunin lahaayeen isla markaana meesha uga saari lahaayeen gebi ahaanba shirkadahani saddexda ah waxaanay qaadeen tallaabooyin cadcad oo ay waxyeello joogto ah ugu geysanayaan habsami u socodka iyo hanaankii shaqo ee shirkadihii ka soo horjeestay go'aankaasi intaa kadib xoogagaasi dulmi wadayaasha ahi waxay u soo guureen xafiiska wasaaradda tamarta iyo macdanta iyagoo afka hore u qabtay qalinka lagu go'aaminayo adeegyada dabdhalinta ee magaalada Hargeysa hore loo yiri isku haye iskama agradee maalinba maalinta ka dambaysa waxa si joogto ah u soo baxayay waraaqa iyo cabatinka ay kaga hadlayaan dulmiga iyo tacaddi lagu hayo shirkadahaas waqtigaan haynahay aqalku ridaayo marka lama dul saare saaliciga ahna maareeyaha shirkadda Telesom Electric Company waxaanu shirkan jiraayadu qabanay go'aamo ka soo baxay wasaaradda tamarta kuwaas oo u daneynaya shirkad kamid ah shirkadaha shirkadihii kale oo dhanna suuqa ka saaray doonayana inuu shirkadda u xidho oo monopoly geliyo korontadii sida darteed ayaan uga soo baxnay shirkii loo qabtay haddana gudaha waxa uu kula jira shirkadii kale maxay ahaydeen shirkadda Sunpower maxay ahayd loo xidhay magaalada annaguna waxaanu diidanay in monopoly la geliyo korontada waxaanu wadaa inuu shirkad kaliya u xidho korontada oo dhan intayada kalena suuqa ka saaro anigoo ah maareeyaha guud ee shirkadda leydhka ee Gaafane Electric Power waxaan halka ka cadeynayaa cabashada shirkadihii leydhka oo dhan oo garabkayga taagan taasoo ah wasiirka tamarta iyo macdanta waxaanu aragnaa inuu wado iska horkeen qas iyo qalaase iyo amni darro uu ka dhex abuurayo shirkadaha dhexdooda sababtoo ah annagoo intayadii kala dawladda taagan shirkaddii Sunpower ayuu kula shirayaa gudaha waa maxamed xuseen maxamed shirkadda National Electric Company waxaan aaminsanahay in aan magaalada cid loo xidhi karin inuu leydhku xor noqon karo in dastuurka iyo sharciga Somaliland ay ku qoran tahay in ganacsigu xor yahay in aan nin loo xidhi karin wasiirka waxaan leeyahay ka xisho in aad cid gaara la shaqayso oo aad koota ugu xidho leydhka iyo qiimihiisa iyo eeriyadiisa iyo siduu u shaqaynayo waqtigaan haynahay aqalku ridaayo marka lama dul saare
14 bisha Disembar ee 2017 ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku dhawaaqay golihiisa wasiirada ee ugu horeeyay. xubnaha uu magacaabay waxaa ka mid ahaa Jaamac Maxamuud Cigaal kaasoo loo magacaabay wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland. in badan oo bulshada ka mid ahay qoon uma lahayn sababtoo ah muu ahayn siyaasi caan ah oo saaxadda siyaasadda ku soo jiray isla markaana kama mid ahayn xubnihii sida weyn uga dhex muuqday ololihii madaxweyne Biixi uu ku hantiyay talada dalka. 20 Disembar 2017 ayaa wasiir Jaamac Maxamuud Cigaal uu si rasmi ah ula wareegay xilka wasaaraddaasi. wasiirkii uu xilka kala wareegay ee Xuseen Cabdi Ducaale waxa uu halkaasi kaga sheekeeyay waxqabadyo muuqda oo uu fuliyay muddadii uu xilkaasi hayay iyo waxyaabo qabiyo ah oo uu kaga tagay miiska wasiirka cusub kuwaasi oo u baahnaa bisayl siyaasadeed iyo hanaan maamul oo lagu qabiyo tiro mashaariicdaasi horumarineed. wasaaraddu waxay meel yar oo ganacsan loo arkayn inay wasaaraddu u eg tahay ayay ahayd oo muuqaalana aan lahayn. waxaan runtii u aragnaa wasaaradda macdanta iyo tamarta weligeeda wasaaradda biyaha iyo macdanta inaanu wasaarad sii ka hooseysay oo maanta aynu aragno inaynu ka dhignay wasaarad eeya. maalmo kooban kadib waxaa soo ifbaxay hogaaminta wasiirka cusub iyo hiigsiga uu ku hagayo wasaaraddaasi baaxadda leh. wasiir Jaamac ayaa ka leexiyay tubtii hore ee wasaaradda kaasi oo ahaa sidii Soomaaliland shidaal loogu soo saari lahaa. bulshadana waxay riyoormeynteeda maalmo kooban uga harsan yihiin. hiigsiga himilada dalkeena aqalku xidaayo marka lama dul saare. wasiir Jaamac rajadaasi shidaalku uma cuntamin taa beddelkeedna waxa uu la soo baxay qorshe uu jeebka dambe ku sitay. waxa uu gudagalay markiiba qorshihii u qarsoonaa isagoo awoodiisa oo dhan iskugu geeyay korontada Hargeysa oo kaliya. waxaanu markiiba bilaabay kala qoqobidda shirkadaha korontada ee magaalada Hargeysa. dulmiga, tacadiga iyo eexda shirkadaha ee wasiirku ku kacay ayaa sii xoogaysanayay. waqtigaan haynahay aqalku xidaayo marka lama dul saare. ramadgeelnin maalay kaa raacayaane. waxa weeye ummad waxa deeqda cadaalad baa deeqda sharci baana kala haga haddii labadaa la waayo nolosha ciidhi bay gashaa. waxaanu ka tirsanaynaa wasaaraddii tamarta dulmi iyo cadaalad darro xaddhaafaanu ka tirsanaynaa iyadoo noo adeegsanaysa ciidanka iyagii noo adeegsanaysa mararka qaar. haddaba waa kuma wasiirka tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland. aqalku xidaayo marka lama dul saare. aynu dib u milicsano Jaamac Maxamuud Cigaal ka hor intii aanu noqon wasiirka tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland. waan la shaqeeyay shirkadda la yiraahdo Somtel oo ka bilaabay Burco. waxay ahayd shirkaddii stationkii telecommunicationka ee Somtel ee ugu weynaa markaa baan manager ka ahaa oo Somtel baan ka shaqeeyay. markii dambe dahabshiil raadkiisa kale u soo wareegay. mar dambe waxaan ka shaqeeyay shirkadda la yiraahdo Sompower wareegta. kadib baan shaqadii ka tegey oo aan siyaasaddii oo markaa ku kaliyeystay
ilaa doorashooyinkii ka dhacaan inna halkan wasaaradda lagu magacaabo. daawadayaal jaamac maxamuud cigaal markaad u fiirsato taariikh nololeedkiisa uu isagu ka sheekeeyey waxaad ogaanaysaa inuu ka mid ahaa madaxda sarsare ee shirkadda dahabshiil hadday noqoto qaybta telefoonnada iyo qaybta korontada oo ah shaqadii ugu dambaysay ee uu sallaanka wasiirnimo kaga soo booday. haddaba saddexda shirkadood ee ka soo hor jeestay qorshaha sombawer maxay ku sifeeyeen wasiirka? wasiirkaas oo cadaadis dheeraada iyo faldambiyeed uu naga galay gacanta kula jira kaas oo uu xilkii loo magacaabay ee danta guud uga faa'iidaystay dan gaara sababtoo ah shalay wuxuu ahaa maareeyaha shirkadda sombawer madaxweynaha waddanka muuse biixi cabdi wuxuu u magacaabay in uu wasiirka tabartii maanta noqdo dabeetana wuxuu uga faa'iidaystay danay gaarka ahaa oo saldhigyadii annagana ugu tootalgalayna noogu xidhxidhayo haddii aanu tallaabo yar qaadno sabad ma taagi karo bir ma taagi karo xarig ma jiidi karo guri dab ma geli karo awooddaa ma lihin waa aragtana biraha yag madaxaas ay ka wada qaawan yihiin iyagoo bira xadhkaa maxaanuu saari weynaa xadhig waa aragtaan kuwa daadsan dhulka daadsan waana laga daadiyey haddii aanu isyihi taaga sabaddoodu waa taa saldhigga hortaada saddexdaa shirkadood ma samayn karaan wax dhaqdhaqaaqa iyo wax dabgelina toonna iyo wax dabfiina toonna mashaariicda magaalada hargeysa ay sombawer ka wadaana waa la arkaa shacbigii cid walba waa ka markhaati wax qarsoon maaha waxaanu marti uga nahay xukuumadda waddanka inay arrintooda hoos u eegto kelmaddaa dhowr jeero horena waanu yidhi maantana waanu ku celinaynaa waxaanu marti u nahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waanu cadaalad darrada iyo dulmigana haysta marti uga nahay xukuumadda waddanka ka jirta iyo sharciga waddanka. wasiir jaamac maxamuud cigaal ayaa sameeyey dadaallo badan oo uu ku doonayo sidii uu indhaha bulshada iskaga jeedin lahaa islamarkaana uu beerlaxawsan lahaa shirkadaha saddexda ah si ay u joojiyaan cabatinka ay maalin walba warbaahinta la hortaagan yihiin isagoo u muujinaya dhexdhexaadnimo ka dhammaynta aanu isagu go'aan ka gaadhi karin. anigu waxaan ka shaqayn jiray sombawer waxaa markaa loo dadku bani aadamku xaq buu leeyahay qofku siduu doono u hadli karaa laakiin waa laga yaabaa in ay islaadaan u wasiir jaamac ka hor intii aan wasiirka loo magacaabin waxa uu fagaare ka sheegay in shirkadda sombawer kooto loogu xidhay adeegga laydhka. maantana arrintaasi ay u muuqato meel aan rabay ruma ku daa'ay tacadigii iyo hagardaamadii wasiirku ku hayay shirkadaha qaarkood waxaa dareemay qaar ka mid ah asxaabta dalka gaar ahaan xisbiga wiciid.
fadhigaan haynahay aqalku cidaayo marka lama dul saare iyo wasaaraddu yaana ku qasbin inay galaan laydh manibuliya oo dadkii oo dhan isku kaashadeen dadku waa xor qofkii diidan lama qasbi karo waxaanu leenahay wasiirka tamarta iyo macdinta somalilan ama sheer ku lahaa sunpower ama ka soo shaqee waa inaad xuquuqdoodii xaqooda siisaa oo aad faraha kala baxdaa kambaniyada aad juqajuqaynayso ee aad ku qasbayso si ay sunpower ula bidoobaan qaracanka shirkadaha halganka ugu jira inay marun heeryada dulmiga iska tuuraan ayaa awoodoodii ku soo ururtay waana la xidhay waana la dhibay waana la dulmiyey fadhigaan haynahay aqalku cidaayo marka lama dul saare waxaa jaray ee leerkaa gooyena wax kale maaha waa shirkadda sunpower wey kaa jaray iyo ka soo diray iyo ka dambeeyaba godobta ciddaan u raacaynana waa garanayna walaaleel waxaa loo socona waxa weye wax kale maaha in dadka la kooteeyo oo dadka saduuq lagu xidhaabaa la doonayaa fadhigaan haynahay aqalku cidaayo marka lama dul saare jaamac egasmaareeyihii hore ee shirkadaha korontada sunpower ayaa markii uu maamulayay shirkadda waxa uu marar badan quursaday shirkadaha saddexda isagoo hadallo ka baxsan ganacsiga ku weeraray shirkadihii imika soo galay daybka oo hadda unkooyey oo marka hore businessyo kale ku jiray qaar qaad ku jira qaar telecommunication ku jiray qaar yani hawlaho ganacsiyo oo kale ku jiray ay imanka ku hambabareen layrka iyo danta ugu leeyahay ummadda inay markaa dhaleeceeyaan shirkaddii sunpower haddaba la soco barnaamijka bidhaanshe fadhigaan haynahay aqalku cidaayo marka lama dul saare